kulanka wadajirka ee u dhaxeeya wasaaradda dastuurka, wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran ay soo qabanqaabisay wasaaradda dastuurka ayaa looga hadlayay habraaca siyaasadda arrimaha doorashooyinka 2020 iyo awoodaha kheyraadka. agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta Maxamed Cabdi Wahaab ayaa ka warbixiyay ahmiyadda kulankaasi oo lahaa khariidada ama tubta arrimaha siyaasadda marka halkan inuu taa ka duulayna ayaan waxa ka hadlaynay shaqooyinka waaweyn ee u yaal wadanka gaar ahaan arrimaha dhamaystirka dastuurka iyo dhamaystirka arrimaha federaalka iyo arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha xuduudaha iyo kala qaybqaadashada maamul goboleedyada iyo wixii la xiriira marka laba maalmood waxay aad muhiim u ah la soo arkay si loo dirgelin lahaa shaqooyinka sida hay'adaha kala duwan ee dawladda doorka ku leh. sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka Maxamed Abuukar Subayr ayaa sharaxaad ka bixiyay kulanka socday muddada 2 cishada ahayd ee u dhaxeeyay wasaaradda dastuurka, wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran qodobada dhaxalgalka ahaa ee ka soo baxay. arrimaha siyaasadda loo dhan yahay runtii wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood oo aad iyo aad muhiim uga ah runtii inta lagu guda jiray muddo xileedka iyo muddo hogaaneedka madaxweyne Farmaajo kuwaas oo kala ah dhamaystirka dastuurka doorasho hal qof iyo hal cod in la qabto 2020 iyo dhamaystirka hanaanka federaalka dawladaha wadanka oo dhan ka hirgala si taa loo taabageliyo marka waxaa qasab noqotay in hay'adaha ay qusayso ama sida gaarka ay u taabanayso oo ay kamid tahay wasaaradda arrimaha dastuurka, arrimaha gudaha iyo guddiyada u xilsaaran arrimahaasi oo ay kamid yihiin xuduudaha iyo guddiga doorashooyinka in ay xil gooni ah iska saaraan dalgalgelinta howlahaas si loo xaqiijiyo. waxaa kaloo kulankaasi lagu gaaray qaabka ay u wada shaqayn karaan hay'adaha ay shaqadu ay ka dhaxayso ee dawladda. Leila Cadaasmaan, Telefishinka Qaranka, magaalada Muqdisho.